kulanti wanaagsan waa qaybtii labaad ee ka qabanay abwaanka daada yar lee xariir cismaan guray oo ka mid ah abwaanada wakhtigan jooga suugaantiisu ay aad u ballaaran tahay isagoo markaas soo gudbinaya suugaantii qarnigii 18aad iyo 17aad oo aad moodaba markaasi inay la dhig tahay bal marka hore ku soo dhowo barnaamijkii labaad ee aynu qaban waan dhowahay waaye toddobaadkan gabayo cusub baa malaha halkaa iga muuqdaa filayaa bal gabayga horeynu ku bilaabi doonaa waxa uu noqon doonaa waa waxay wadaadada qarxaa ugu wareereen kulley waxa weeye waa dee gabay mucjisa ka sheekeynaya amaba wax la yaabayba bal gabaygaas dareenkii ku dhashay iyo adoo marka dambe isku dayaya bal gabaygii iyo markaasi inaad ku luqayso bismillaahi raxmaani raxiim waxa weeye de kolley wax waliba waxun buu la yaaban yahay ma garanaysa tixdan gabaygana aan u baahindisay oo soomaalidu maan eegun ma garanaysaa dhibaatooyinkeeda faraha badan siday u socoto waxba laga fahmi maayo la yaabka soomaalidu markaan aad u fiirfiirsado aad bii ugu badnaa baryaaba markaa tixahan baan ka soo diyaariyey tixdan iminkana iyo tixda iminkaan aan bilaabo bismillaahi raxmaani raxiim hadduu gabay wanaag leeyaho waana lagu qaato wakhti aadaba igaga lumay wee dhammaansadaaye wax badan baan habeen weyn ku sugay waa beriisahaaye wacdar ahaan adduunyada haddaan cidi ku waraynin wacdigiyo cibaadada allah waajibkayga caawana waxyiga muuqda baan sii wadwaadayaaye hadday beeloo kala waabsamaa weerar kala gaadhay waan waanta guud iyo haddii nabaad la soo waayo wadaagaa xeryuu geel jiraa wow wacnaan jiraaye lalabaa wixii soo kordhay kala warqaataane la wareematayn waa halkay wadarkootaan ujeeddada waxaan uga socdaa way ka weyn tahaye wiilkii adhiga weer u ka cunay weehad ceelin waaye waran weer kaliileed hor weyn waabin kari waaye dhanunbay ka weydaarataa wiirahaye iyagoo waxbarashow dirawga wacnaan leyd wadaadiyo carruurtiyo islaan habarti weeteeyey waayeel tala xun reer ku wataa way tabaaq noqoye maatidaysu walbay nin raga wadhi ka raacdaaye isagoo la waayaa karoon laga walwaalyo ujeeddada waxaan uga socdaa way ka weyn tahaye mas-uul wada jir loo dhaariyo qaranka wiiqaya oo wax ka heeryaynaya wagaare waayaabe walli iyo bili umar iyo wacaadki beeneeye shacabkaysu ujeeddada waxaan uga socdaa way ka weyn tahaye afartaa tixdii aan watiyo wow makaahi gaadshay waddadeeda kama weecin karo wee dhammaansadaaye cawanaa waxyiga taagan baan sii wadwaadayaay warwarkiyo dhibaatada rabbaa laga wakiishaaye kolba hayad waageeniyaa weliya moodaane xildhibaan la weeliyo wisiir waysahaw sidee kolba waano aan diin ahayn hay waraabsheene hadba dhaqanay soo waarideen haygu weecsheene goortay wanjeertaw qalaan haysu wariyeene caawana waraabi raqbuu wugda kaa hayaaye waa waxay wadaadada qarxaa ugu wareereene waxay wadaadada qarxaa ugu wareereene inuu waardiyu laayabaa waajibkiisa ahe waa xaggee wadaagii tashigu waa lalow malaah
waa xaggee wadaagee tashugo waa lalow malaaye dadkan reer bareer lagu wanjalay weydan haadhi weydey dadkan reer bareer lagu wanjalay weydan haadhi weydey tuugtuug waraaqa ka xaday waali hadalkiisa dumquraadigi lo wanqalay warabku weeyaane deeq bixiya yeeshay wataan waalaf laga qaadiye inuu waardiyu laayabaa waajibkooda ahe waa waxay wadaadada qarxaa ugu wareereene waa waxay wadaadada qarxaa ugu wareereene waa xaggee wadaagee tashigo waa lalow malaah nimankan malaayagana waa inuu waardiyuba layaa xaq baan filaya weli waxaan ku guda jirnaa gabayadii faraha badnaa ee abwaan xariir lahaayoo marba mid baynu soo qabsanana waxaa jira gabay kaloo diintana ilaahay baan nafaray dhaqanna waa duug oo yacni malaha waxa filaya inay tahay dee ilaahay baa diinta nafaro oo dee kownka dhanba waxay ku taagan tahay dhaqankuna waxaan dee isbedelayn baa filaya inuu yahay oo laga guurayn bal markaa ujeeddadii ay ku soo baxday tafsiirka yara bixi waxay ku soo baxday ujeeddada diintana ilaah baa nafaray dhaqanna waa duug nin baa kordhnay aqoon-yahaan hebel baanay hadduu doono abwaanba ah sugan yaqaana aqoontii ma garanaysaa waxyaabaha kale dee tii maadig ahayd iyo waxaan mooyaane dhaqan aqoonna uma aqaan ninku haddaan u kaynta dabka ku shidan bahasha practical aan ku soo baran waxyaabahan maaragtay farsamooyin kala bartaa waxna waa practical waxna waa theory ninka waxaan u aqaanaa kaynta dabka ku soo shitay ayuunba hadduu saaday cid dhaqanka bar ayaa bari kara ninku markuu kaynta dabka ku shito u xusta aqoon practical miyiga maro dee haa ma garanaysaa cilmi dhan baana ku jira halkaasoo ma garanaysaa kolkaa ay ka maran yihiin dadkan reer magaalkeeda rag badan oo le aqoon-yahan baaneh oo PhD stow dee waxaa jira aan haddana dhaqankii garan hadduu doono diinba ha lahaadabe dhaqankii haddana ay ka maqan yihiin haa uu ka aqoon badan yahay 90% buu qayb uga aqoon badan yahay dee qaybna kana uga aqoon badan haa hey farhunguridu dee kana haystaa kana dhaqankii Soomaalidu say ahayd ayuu haystaa dee quraankii yaqaana waa laga yaabaa markaa gabayga saasaan ku keenay markii dambe qaybtiisa dambe wuxuu sidan horta dhaqankii uga sheekeynayay abaarta waxaan tiriyay 2014 gabaygan tii 2015 dhacday ayuunbuu sabab u noqday qayb nirga ay soo dhex gelayaan oo qiso dhabahoo ka dhacday halkaa ma garanaysaa ayaan markaa ayaan gabay ku soo qaadanaya wuxuu odhanayaa aan bilaabo bismillaahi raxmaani raxiim waayadan daadii gabay ma tirin deelkii maansadaaye afka waanka daystiyo dibnaa laba diraacoode cawanaa halkay daarantaan ku dulmaarayaa duruusuhu dareemada bankiyo doo ka faara weyne dabayshiyo godkuna way jiraan la isla doontaaye taa waxaa dareenkeeda hela adduunya foofsadaa nawriish dabayl ku galiyo cadarra duulduulle karan daahday iyo dayryaraan diilalyaada saariye damba samee intuu da'ay haddana heegaddadan keenay diqin 200 soo dhacdiyo daadashaada dheelka waa siday daroontii bulshada kula dardaarmeene saddexdoo dariiq wada maraa laga ducaystaa dooxatooyinkiibaa ku furaan duunyadoo idiile way dunuunuc gooyaan nirgaa deex ka haadhayaaye duuq gabowday iyo qaalintii dabaatay mooyaane hooyooyinkoodan dacguri indayanba mayaane dayaxay ku foofaan xeryaa kamaa dulyuusaane gabayooda iyo koordhowgii mabaadaneeyaane seer ma weydo lamaa doojiyo dawlis loo qabaye gu-80 dabaa maraawu dambayn jiraay waa markay duruufuhu daliyo dibadba gaadhaane
maalintaa dukaan iyo bakhaar dalab ma yeeshaane dilaaladuu shaxbay sayladaa uga dareeraane indhurwaagu dihaalci awow dabeeciyan intii baal ku duushiyo intii caga ku daaqaysa dab bogintii ku dalan baabidaan kugu daarayaaye duur joogtayo bay noqdeen dadiiyo maalkiiye midna kamaa dammana oo xilligu kama dahsoonayne daayinkii abuurtiyo laydeeq ka sugayaan daakiraadda waa beri haddii foore kuugu duulo u laydhis doordooriyaa dacal walbow jeesto diinkii cawska diida ka baxaa duudu aaminaye awrkii wax badan dawryi jiray geela soo dayeeye markuu doobiyo sadaal guba laga dareem waa siday daaroontii bulshada kula dardaarmeene dooxooyinka laga durkaa daad mareennada libcasta dulka horku waa caadadii inuu dilaacaye libcastaala loo curatay waa laga ducaystaaye wuu diiranyo naafku wuu doobir weyn yahaye dardhin maayo xoolaa intii daaciga ahay toddobaad kolkay diirsatee lay isku soo doogo budhudhkii ilmaadaadiyaa laga durduurtaaye haddii diriir sagaaleed gudgudee ugu dambayseeyo marti daallan waa lagu farxaa duul wadaadaahe dabka iyo darmada loogu gee meel duleedkaahe dahab caanihii laga lisiyo darab la geedeeyey iyo subag anfaca loogu daray daraygi weeyaane intaasoo diyaaro qaxwii laga dambaysiiyey degdeg loogu gee coliimadii daahirka ahayd daliilkii kitaabkiiyo wacdiga nagama dayaane markasay durbaaniyo shallaad ugu danuuqyayne deriskii asmada loo akhriyey degal barwaaqowye iminkana la diidyo wadaad dayriyaa jirae waa taa dalkeennii abaar loogu dowgalaye hay-adaa dantooda uu socday daraja moodeen afartaa maluug baan ku daray oon ku daydayaye diintana ilaah baana faray dhaqanna waa duuge wax kaloo la soo dacal dhigaa damac ma yeeshaa haddii wiil jacayl daadahshuu dadab ku falloodo dabaa lagu hagaaja haddii guurka laala doono tay hablaa dariiq kulaa kulmaan may dugsiin jiriine tay dabeecaddeedun gartaan dookhu ma ahayne duntaa qoyska loo eegi jiray durida reeraaye waxaa haybta lagu dooni jiray deeqayeenaneede markaasay dareensiinsi ay damaalo ootaane dib u laabashay qaban jireen degalladoodii dubboo curatay deexo dhashiyo daawad iyo faagad dabaqaad markaa gojiyo quruxda loo dooray iyo aaran dabaqaadayo sumadda loo diiday tusmi baa lagula duubi jiray doobabkii horaaye duca laysku siin jiray hablii daacadda ahaaye duca laysku siin jiray hablii daacadda ahaaye duca laysku siin jiray hablii daacadda ahaaye sooyaalkii doorsoomay baan dib u xasuustaaye ha yeeshee wixii dooriyaan kuu dulmaarayaaye deegaanku dookii wacnaa dayrku kaala oodiye iyagoonu diifoobinoon daalla taabanaynin iminkay duleed kala tagaan doobabkii kacaaye xidid bay ka dooneen tol aadaawa dhigateene dagasta taasa ugu wacaan reerihii dumaaye way dumaashi beeshoo kalgacal looma soo dayaaye dad magaalo maantay gayaan kaga dambeeyeen magaalo cid kastaad ka helaysa
afartaa maluug baan ku daray oon ku daydayay diintana ilaah baana faray dhaqaana waadooge wax kaloo la soo dacalligaa damama yeeshaan anigoon da'weynayn kolkaan dunidan soo gaadhay geel baa la ii diray cabdow daaqsataa ahaaye aanoo dayrcad siiroo yeliyo daawad ceelinaya ninka doolla iyo xeeb dhexdoo daajiyaan ahaaye dix waqooyi iyo waanu horay dooxi jaarareede waa wixii dabaylaay baray daayinkeen wadaaye waan daraasadeeyoo cilmiguu igama daahnayne dabla shidasho aadmiga kolaan diiday baa jiraye dayaxanii dariiqu maraa layga daalacaye dugsigeeda waataan ka baxay deex markaan wadaaye doolin waaran weer haddii doogla kaala raaco dhulka meel dibboodkiisu tegay waadigood yareeye boodhkiyo habeeddaysku duu quruxdii wowdoore daandheerta iyo goolashiyo daawi riimaydeeda duqda iyo irmaankiisu way soo durduuriyaane dad ma kala xigtaystaan kolkay dararta maandeeqe dambarsaday abeer dhalay anoon diirin gaawahaye dambeedadaa ka maray qaalmihii dooranaan jiraaye dadna waxay xayaysiinayaan daasad caanaahe allayle dembeynaga galeen mana dareemaan mid kaloo ka sii daraan haddaan doodda ku caddeeyo digtooroontii xoolaa dafiray diiqadnaagu beerye dad bukooday bay odhanayaan yaa duxciidisiine dawaday ku socodsiinayaan daacad baan jirayne dad qal iyo cawaan dayr fadhiyaa way ka daaranyeyne iyaguna dembeynaga galeen mana dareemaan waxaynu weli ku guda jirnaa barnaamijkeennii hindisii halabuur oo toddobaadkan oo marti ku ahaa abwaan xariir cismaan gurey abwaan waxaad ka warantaa waxaad mooddaa iminka gabaygu inuu saaxadda ka sii baxayo oo uu sii dabargo'ayo oo dadka inta badan iminka waxaa la abuuraya ama wax tirinayaaba dee jiiftooyin iyo heesa iyo wax la halmaala ayay inta badan sameeyaan bal taa markaa maxaa kalifay baad adoo odhan kartaa bismillaahi raxmaan raxiim taa waxaa kalifay nimankan horta jiiftooyinka tiriyaa waxaan malanayay niman ciyaar waaye waa heestii ciyaarta uun bahashan ay tiriyaan haa hees ciyaareed weeye de ciyaarna ma hayaano ma joogaan de aniga bahashaas inaar sheekadaa igama duwana ma garatay qudheeda waxaan u fahmaya waan hees jiray ciyaarta waan hees jiray markaan imaado ciyaar soo tagaano waxba ii samaysnayn halkaa soo taago waan heesi jiray markaa adigu dee suugaan way tahay laakiin tii nimankii cabdiqays iyo gaariye iyo hadraawi iyo rag badanoo nooca ahaadee taasoo kale macnaha dee xambaarsanayd mooyaane nimankan dee iska sheekaynaya waan ku jeclay heblaayo waan ku jeclay dan kuwan heesayo kale un waa kuwa waxaa u sameyn oranaya dhiindhiin ma garata abwaan dee yani dee seven walba dee wuxuu leeyahy markaa dhalinyaradiisa iyo dee waagiisuu yeelanaya yani miyaan la odhan karayn dee maadaama iyagu inta badan dad magaalo ku koran yihiin oo dhaqankii aan wax badan ka garanayn dee waxa kaliftay magaalada ay ku koreen un ay ku cabiraan suugaantooda oo meena taa la odhan karin deniyo haw ninka ku koray qurbaa iyo xaggaa mooyaane ninka waddanka soomaalida ku koray bilmatalimka hargeysin joognaa afar jahbo waa miyi yaa xaggaa markaad u baxda miyi baa ka xigto markaa dadkan dad dee dhaqan soomaaliyeed ka baxsan laguma sheegi karo qof dee isagu sidiisa iskaga madhan mooyaane marka waxa weeye waxaanay adigu ma dee waxba ma samaynaysa macno badan ee gabaygunbaa iyo gaaraarkaa saxa heestana adigu dee way isdhaantaa bahashu qaar baan maca hadday heesaa ciyaaradiin hablou guraadeen yaa marka anigu hees ciyaaradii waan ku sheegay inaan ka bedelayne waa tana dhegeyso anuma habeen baan ciyaar tegey ciyaar miyi baan tegey beelo aad u fara badan isugu yimaadeen cid islaamina aanay iga garanayn anna aanan cid ka garanayn inay soo taagi doonto waan qabsaday waan ku qaaday ciyaartii jiib baan ku qaaday cod dheeroo jiiba
niyo suugaanteeda kalena waxaan malaya inaan ugu cod fiicnaa ciyaarta marka joogo bahasha ciyaarta la yidhaahdo miiga markaa ma la odhan karaa ciyaartu xiise gaara leedoo jiibtii iyo jaantii baa laisla helayaayoo dadkii baa dee ma garanaysaa dabeeta markaa jiibtii ku qaadnay midhaheedin baan imika sheegayaa oo dee waxaan akhriyayaan waxba ka bedelayn xagga ma garanaysaa cod ahaan dee qaafiyad ahaanba markaa waxaan idhi botorka iyo ciyaaraha idinkuna waa bilowdeen anna baal baan ka soo galay ee beeluhuma nabadba 3 waan ka baydhaa 3 waan u baaqaa 3 lama bedeli karo 3 waan ka badow baxa 3 waan u baaqaa bulsho meel isugu timi beelo nabad u wada yaal geela iyaga oo uu badhiga hadhay 3na lama bedeli karo oo mee 3na waan ka baydhaa beenaale iyo tuug iyo meel booli lagu qalo midna baraka kuma ogi 3na waan ka badow baxayo buul sheekadiisii bad madow dabaasheed buul sheekadiisii oday soo baraarugiyo habar biixi sidataa waa intay ka buuqaano biixidu waa xaabadii jafka ahayd garanaysaa galoolka habar biixi sidataa waa intay ka buuqaano berri lagu yabahshaa baxar aad ka qaadaa taana waan ka badow baxay haadala alla inantiiba ku soo guday dee ma garanaysaa yaa 3na lama bedeli karo oo me 3na bad madow dabaasheedna bad tallaale aagiis iyo dekadii berberaweyn iyo baryo saaxil aan tegey waa kii bahalku igu sugay dabaasha bahasha leeban anuu aad u aqaanay waliba ballidii iyo baraagi kusoo bartay baddaan deedna khadkii loogu talagalay baa ka baxa meesha xawayaanka laga gelayaan ku dhawaaday badda deedna bahal nabaduu soo quusay arko dabaal joogto waxaan israaciyeyo mawjadda iyo maa 15 goor say soo raaciyo ilaahay iga badbaadiyey taana waa ka badow baxa 3na waan u baaqaa 3na baahi uma qabo boqonweynta dhaadheer waa geela buladkeeda xoorka leh iyo geel baahi uma qabo baxni baan xareeya dalla baahi uma qabo buuro cidhiidhiya iyo godon baalihiisii waa beledadaydii meesha deegaanu lahaan garanaysa ugu ciidda wanaagsan dhulkana waa godon baalihiisiioo dalla baahi uma qabo tolla baahi uma qabo ragna baahi uma qabo bahyaraha kamaan dhalan aasaan meel dee tira yar bahyaraha kamaan dhalan 3na 3 baan la baalmarin meelaad boos ku leedahay iyo ballan ruuxa dhigateen iyo sharcigaan la baalmarin 3na laguma beegsado col ballaadhan keliga aar bannaan ka soociyey bakhtiyaa nasiibada inanta iska barateen bakhtiyaa nasiibada inanta iska barateen waa intay bawdo jaban tahay bira ay ku booddaa ay biixiyaa ku socoto waa labadaa